الرحيم السلام الله عليكم الله ينبر وحنا أنفعيا نقول أنفع واحد نبرتي علمي إنه زيادة ومركل أيوة برنامج كيني آذنا كابا 2 وأنا حلقة دي سي تبنادا برنامج كان آذنا كابا هيان وحان كسوق آذنا يابو لغو هرمارين أيوة هرمارين تبلشدا إنسانك أما قفك iyo shakhsiyadiisa intaba waxaana alaaba diiradda ku saarnaa mawaadiic kala duwan oo aan markaasi aan isleenahay inay wax badan ay ka faa'iideeyaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan barnaamijkan aadana kaab ayaa alaaba waxa idin la socodsiiya Ifraax Maxamed Cabdulkariim iyo anigoo ah Maxamed Ali Juxa ku soo dhawaada barnaamijkii waxaana ka daawanaysaan channelka Samuud soo dhaw Ifraax السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داوداش شرفتي قيمها لمن ولي شوكتان قلب وناكسن وعن waxaad halkan ka daawanaysaan ama aad kala soconaysaan barnaamijkii aadana kaab 2 oo nooga barateen xiliyadan oo kale barnaamijkii toddobaadkii hore ayaa wuxuu ahaa xakameynta xanaaqa ka on kaga soo hadalnay 4 qodob waxaanu dhameystiri doonaa maanta hadduu alla idmo qodobadii xigay afartii qodob ee aan ka soo hadalnay hadii aynu isxasuusina ayaa waxa kamid ahaa fakar inta aadan caroonin marka aad digto caradaada sheeg marka aad carooto samee jimicsi kooban nasashiyar qaado halkaas ay inoo joogtay maantana halkaas ayaan ka sii ambaqaadi doonaa waana qaybtii labaad ee xakameynta xanaaqa ay noo bilowdo ustaad Ifraax Maxamed Cabdulkariim qodob hadii aynu halka kaga soo harno toddobaadkan ayaa waxaan dhameystiri doonaa qodobadii xigay ee barnaamijkeeni toddobaadkii hore ee xakameynta xanaaqa qodobka shanaad ayaa waxa uu noqonayaa raadi xalka ugu macquulsan halkii aad diiraddu saari lahayd waxa ka careysiiyay oo u dhaqaaq inaad hesho xalka ugu macquulsan tusaale hadii ay ka careysiyaan caruurtaadu ood aragto sameynaya waxyaalo aan ku raali gelinaynin marnaba ha caroon una tiji waayo caruurta ayaa waxay ku leeyihiin inta badan waxay inta badan qaataan hadalka degan ee wanaagsan halkii aad kula kici lahayd in aad u carooto ama aad garaacdo ama aad habaarto intaasoo dhan ayaa waxaa kaa deeqayo in aad sameyso xalka ugu macquulsan soona afjari kara caradaada tusaale ahaan hadii aad isku dhacdaan saaxiibkaaga oo inta waqtiga wanaag badan iyo waxtar badan oo idin ka soo dhaxeeyay ayaa hadii aad u carooto waxa laga maarmaan ah in aadan fududaanin oo aadan hilmaamin wanaagii iyo jamiilkii idin dhaxeeyay waqtigii hore ee aadan ku qiyaas qaadanin xilliga aad careysan tahay shaydaankana uusan kaaga faa'iideysanin tan ayada ah waayo qalbiga erayada aad ku tiraahdo xilliga aad careysan tahay ayaa waxay keenaan dhaawac dambe ee mustaqbalka qofkana ka fogeyn kara in badan sidaa darteed ayaa waxa laga maarmaan ah inaad u kuura gasho kelmadaha iyo waxyaalaha aad adeegsanayso xilliga aad careysan tahay daawadaha sharafta leh ayaa waxaan idin soo jeedinayaa ama idinku leeyahay ama laga maarmaan ay tahay in aad isdejiso xilliga aad careysan tahay qodobka xiga ayaa waxa inoo daadihin doona Ustaad Maxamed Ali Juxa qodobka xiga ayaa waxa uu yahay ha isticmaalin kelimada aniga ee waxa isticmaashaa jumlad ama oraa sideen wada ogsoonahay nabigeena Muhammad alayhi salatu wasalaam wuxuu dhihi jiray Allahumma inni a'uudu bika kalimata ana kelimadaas aniga inta badan waxa la isticmaalaa marka uu qofka uu caroodo waxaadna ogaataa qofka marka uu caroodo waxa la ogaadaa macdanta dhabta uu ka sameeysan yahay qofkaasi waayo qof walba xaqiiqadiisa markaas la ogaadaa marka waxa laga rabaa inaadan naqdinta iyo dhaleecaynta aadan badinin waayo inta la xanaaqsan yahay ma xanaaqa marka uu jiro dhaleecayntana way badan tahay naqdintana way badan tahay marka kelmadahaasi naqdinta leh iyo dhaleecaynta kaliya waxay keentaa kala fogaansho iyo qof agtaada qaali ku ah qalbigiisa inaad dhaawacdid marka saas darteed looma baahna inaad kelmadaas inta badan aad isticmaashid oo ah kelmada aniga isla mar ahaantan waxa laga rabaa inaad isticmaashid oraah ama jumlad markaasi
aad ku muujinaysid waxa aad rabtid inaad sheegtid waa inaad ka fogaataa isticmaalka kelmadda aniga waxaa sameeyey aniga waxaan iri aniga wax allaal wixii wanaagsanayo dhan adigaad isxijisay qofka ka careysiiyeen wax allaal wixii xumaayad dhabarkaad u saarisay marka saas darteed uma baahnid inaad kelmaddaas inta badan aad isticmaashid muxuu ahaayay maartay qofka haddii wax uu sameeyo waad dhihi kartaa maxay to maartay arrintan inay dhacday waan ka xumahay oo kale kelmadahaasi waxay ku muujinayaan inay maxay to maartay qofka qalbigiisa inaad nabadgelisid inta badan qofka carooda wuxuu dhaawacyo badan gaarsiiyaa qofka kale qalbigiisa saas darteed waxaa laga rabaa inaad mar walba aad isxakamaysid caradaada aad xakamaysid haddii aad carooto isdejisid waayo qof walba waxaa la ogaadaa xaqiiqadiisa dhabta ah marka uu caroodo haddii macdanta aad ka samaysan tahay haddii ay tahay dahab ayaa tahay deeman haddaad ka samaysan tahay deeman ayaa tahay bulkaati haddaad ka samaysan tahayna bulkaati ayaa tahay saas darteed xakamee caradaada inta aadan waxba qaribin qodobka toddobaad ama qodobka xiga ayaa wuxuu yahay qofna ha xaqidin cafintu waa agabka ugu awooda badan haddii aad caradaada sii wadato oo dareenka taban ama negatifka oo booska ka riixo inta badan dareenka togan ee positifka ama kan wanaagsan waxaa dhici karto inaad naftaada ka heshay inay ku hafatay ficilo cadaalad darro u keeni karo iyo xadgudub marka dambena aad dulmi u xubsiibato ha yeeshee haddii aad cafiso qofka kaa caraysiiyey waxaa laga yaabaa inaad qofkaasi wax ka baratay oo xiriirkaagii sii wanaagsanaaday qofka oo aadan xaqidin ayaa waxaa keeni karta in caradii intii lagu guda jiray aad wax badan ka barato ood isdabeecad fahantaan sidii hore si ka wanaagsan waxaa dhici karta caradu mararka qaar waxbay saxdaa haddii aadan ku tegin marka aad caraysan tahay oo aadan noqonin ceeba faarfaar ama mid ceebaha qofka banaanka usoo saaro haddii jeer waxaa qurux badan inaad asturto ceebta walaalkaaga qofka oo aad xaqido ayaa waxaa sababta keeno carada ood ku fogaato qofka ood ceebihiisa faarfaarto ama aad daba gasho ayaa waxay keentaa inta badan inaad qofka kula kacda waxyaalo uusan kaa istaahilin halka uu booska ka riixayo waxyaalihii wanaagsanaa ee horey idiin soo dhexmaray xilligii carada ka hor carada waa wuxuu shaydaan aabbo u yahay haddii jeerna keena kala fogaanshaha labada qof ee walaalaha ah ama saaxiibada ah si dhow wuxuu dhexda ka saaraa xanaaqa wanaaga badan ee idiin dhexeeya adiga iyo qofka dhigaaga ah ama saaxiibkaaga ah ama kaala dhexeeya xiriirka dhow sidaa darteed ayaa waxaa lagama maarmaan ah inaad haddii jeer isku daydaa xilliga aad caraysan tahay in aadan ku tegin caradaada ee aad xakamadaysan naftaada inta tabartaada ah xasuus dheerna aad u lahaataa caradan inuu shaydaan ama ficil shaydaan inuu yahay sidaa darteed ayaa waxaa qurux badan daawadaha sharaftii qiimaha badan in aad haddii jeer xeerisaa wanaagii hore ee idiin dhexeeyey adiga iyo qofka xilliga aad shaqada quruxda badan safarka quruxda badan iyo kaftanka iyo sheekada quruxda badan aad ku wada jirteen waxaa lagama maarmaan ah in aad eegtaa dabeecadihii quruxda badnaa iyo waqtiyadii quruxda badnaa ee haddii jeer idin soo dhexmari jiray carada waa mid waqti ku eg oo dhammaata haddii jeer qowlka ama ficilada aad kula kacdaa ama xaqidaada aad kula kacdaa qofka ayaa waxaa sababto in uu kaa fogaado inta aad ka fikiraysa in ka badan iyo sanado badan waxaa imaan karto in kalsoonidii badnayd ee uu ku hayay ay halkaa ka baxdo sidaa darteed ayaa waxaa muhiim ah haddii jeer inaad ka fakarta waxyaalaha imaan doona xilliga aad caraysan tahay xilliga aad caraysan tahay ma aha noloshaada oo idil ee waxaa weeyaan keliya waqti kooban sidaa darteed si aadan u qoomamaynin ha xaqidin qofka walaalkaaga ah qodobka xiga iyo ustaad maxamed kaftan oo sii daa kacsanaanta ama xanaaqa ha ku dheganaan waad xanaaqday soomaa isku day inaad isdejisid markaad degtidna isku day inaad kaftantid
waayo kaftankaasi wuxuu keenayaa inuu hoos u dhigo weliba aayar hoos inuu ugu dhigo carada ama kacsanaantii markaas adiga aad dareemaysay. waayo sida ustaad Ifraax ay sheegtay carada waa wax meel ku eg weligeed ma sii joogayso. مثلا xanaaqa waa kula joogayaa wuu kaa tegayaa. dareen kasta oo markaasi qofka bini aadamka ku tacalluqa wax joogtaa ma aha. marka saas darteed marka haddii adiga aad carooto isku day inaad isdejisid ka bacdina aad kaftan booskii qaylada ama muxeeto mar hadiiba adiga aad awoodeeda leedahay. haddii kale soomaha aamusnaanta laftirkeeda waxyaabo badan ayay daawo u tahay. haddaad carootid afka ha furanin, ha qaylinin, ha buuqin, ha gariirin, xakamaha ha luminin. sababtoo ah waxaad arkaysaa qofka markuu caroodo waxyaabo badan uu burburinayaa. qaaraad waxaad arkaysaa markay caroodaan wixii ka hor imaada lugta ku dhufta ama gacanta ku dhufta. qaar ayaa markay caroodaan guriga ku kaca. qaar ayaa markay caroodaan caruurtay ku kacaan. qaar ayaa markay caroodaan wixii markii ka hor wax allaal wixii ka hor imaaday maxay ay afka ciidda u daraan. waxyaabahaas oo dhan uma baahnid marka. dadaa waxay ku dhahayaan aniga markaan caroodo waxaan sameeyay ma aqaani. waa taqaana waxaad sameynaysid. bes waxaa lagaa rabaa inaad maaraysid ama xakamaysid caradaada ama xanaaqaaga. inta badan xanaaqa waxaa shida shaydaanka ha u hiilinin, ha u gargaarin, gacanna ha siinin. waayo haddii xanaaqa aad sii wadid marka waxaad u hiilisay shaydaankaad u hiilisay. qof kugu qaali ah ayaad weynaysaa ama wax kugu qaali ah ayaad luminaysaa marka ama qiimo lagu haayay ee meesha ka baxaya. marka sidaas darteed marka waxaa lagaa rabaa inaad mar walba aadan ku dadaalin inaad mar walba aad caraysan tahay. haddaad carootidna aadan la noolaan carada tirada badan leh rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waa nooga digay. laa taqdab. haddaad carootana shaydaana ku shaqo leh caradee cudubilayso. waayo markaad cudubilaysatid shaydaanku wuu kaa cararayaa, deganaan iyo xasilooni ayaa ku imaanaysa marka caqligaagana wuu soo noqonayaa marka haddiiba caqligaaga uu xanaaqa kaa duuliyey. saas darteed marka qofka waxaa loo baahan yahay markii uu xanaaqo kadibna uu xakameeyo xanaaqiisa. qofkii uu ku xanaaqay inuu la bilaabo kaftan, hadalla degan, hadalla macaan, si markaasi qofkaasi qalbigiisa haddaaya aad dishay saad u soo celisid mar kale. qodobka xiga ayaa wuxuu inoo tilmaamayaa mid markaa aad muhiim u ah oo ah in aad ku dadaasho nasashada ama huduu'a nafsi waxaa loo yaqaano ama mahaaraat alhuduu waxa la yiraahdo. marka uu dareenkaaga kacsan yahay isticmaal xirfadda nasashada ama huduuga ama relax skills. sidaa darteed ayaa waxaa muhiim ah inaan caqabad kasta xal u helno. qodobkan ayaa wuxuu na farayaa inaynu nasanno xilliga aynu caraysannahay ama aynu ku dhaqaaqno waxa loo yaqaano mahaaraat alhuduu. sidaa darteed marka uu dareenkaaga kacsan yahay isticmaal xirfadda ama mahaaraat alhuduu ama nasashada. inay shaqayso waxaana ka mid ah inaad u qaadato neefta si qoto dheer. u malee inaad joogtid goob aada u degan oo qurxoon. ku celceli kelimadaha aadka ku cajabgelinayo kuna dejinayo qaybna ka qaadanayo dejinta naftaada iyo wixii la mida. waxaa ka mid a inaad ku dadaasho akhriska qur-aanka kariimka. waayo qur-aanka kariimka waa cilaaj, wuxuuna cilaaj u yahay wax weliba uu inquseeyo. sidaa darteed ayaa wuxuu muhiim aada u yahay ama nasashada nafta ayuu qayb ka yahay inaad qur-aanka akhriso ama aada dhegaysato xilliga aad caraysan tahay ama uu kacsan yahay dareenkaaga. uu shaydaanka ku farayo ficilada aadka u foosha xun ee marka dambe kaa yeeli doona haddii aad dhegaysato mid keligii meel taagan ama inaad noqotaa shajaratulmaqtuuc. shaydaanka ayaa inta badan wuxuu ka taliyaa waxyaalaha negatifka ah ee aynu maslaxada ugu jirin qofka bini'aadamka. wuxuu kaa fogayaa wax weliba oo qurxoon, wuxuuna ka faa'iidaystaa
dacfigaaga ama awood darrida aad ku sugan tahay xilliga aad caraysan tahay. sidaa darteed ayaa wuxuu qodobkan sidaan soo sheegnay bayna faraya inaynu nasasho ballaaran ku dadaalno, inaan naftu waqti la qaadano, in hadallada wanaagsan in hilmaansiin karo carada aan u qaadnay qofka kale, sida inaad fududaysata ama aad tiraahdaa dhib male, wanaagii hore ayaa ka weyn. dhib male waa saaxiibkay, dhib male waa cunugayga, dhib male waa saygayga ama waa xaaskayga. kelimadahaas ood fududaysata ayaa waxay qayb ka tahay inay nafsadaada ku samayso tanmiyatu daat ama ay awood siisa nafsadaada. sidaa darteed ayaa waxaa muhiima inaad kaashato waxyaalaha kaabaya naftaada. qodobka xiga iyo ustaad maxamed. qodobka xiga ahna midka ugu dambeeya ayaa waxa uu noqonayaa ogow goorta aad caawinaada raadinayso. bini aadamka xanaaqa waa ku kala duwan yahay. qaar si weyn ayay xanaaqa u dareemaan, qaarna si dhexe, qaarna si hoose. marka dadka aan ka hadlayno oo la rabo inay raadiyaan caawinaada ayaa waxa ay yihiin kuwa xanaaqooda ziyaadada uu noqdo. marka waa inaad garan kartaa marka xilliga aad u baahan tahay in laga caawiyo arintaasi, sababta oo ah inaad baratid xakamaynta xanaaqa ama caradaada. waxay kaaga baahan tahay ama waxaa ku imaan kara loolan iyo caqabad markaasi kusoo waajahda. sababta oo ah inaad naftaada aad xakamaysid markaad caraysan tahay waa loolan ka mid ah loolamada ugu adag. sidaas darteed marka haddii aad isleedahay xakamahaaga xanaaqa xargaha ayuu goosanaya, waa inaad la hoosgashaa qof markaasi kaa caawini kara qaabkaad ku degi lahayd ama qaabkaad maxay aheeto maartay aad uga guulaysan lahayd xanaaqa aad xanaaqsan tahay. taasina waxay kaa saacidaysaa inaadan qarribin waxyaabo badan. saas darteed qof walibow oo xanaaqa xakamay xanaaqaaga. haddaadan xakamayn karin xanaaqaaga, cid kaa caawisa qaabkaad u xakamayn lahayd ama qaabkaad u baran lahayd caradaadaas aad ku xakamaysid, la hoosgal. taasi waxay kaa caawinaysaa noloshaada inaad u wadatid si degan oo weliba relaxationna ku jira. inta aynu soo xirin waxa aan ku su'aalayaa, waxaynu ka soo hadalnay xanaaqa iyo waxyaalaha aan ku xakamadeyn karno. su'aal, adigu maxaad ku xakamadaysaa naftaada xilliga aad caraysan tahay? aniga markaan caroodo ifraaxay, horta dadka way kala duwan yihiin. aniga nafteeda markaan ka hadlaayo, markaan xanaaqo waan aamus dheeraan galaa. sababtoo waxaan ogahay markaad xanaaqsan tahay haddaad hadashid waxaan isleeyahay ama qofkaan amaad dhaawacdaa, amaad qofkaan dhib aad u geysataa, amaad qofkaan hadalka kaa soo bixi doono kululaantiisa amaad ku weydaa beri ka maalin. sababtoo qof walbo noloshaada kusoo biiraya, walaal ha ahaado ama saaxiib ha ahaado ama xaas ha ahaado ama say ha ahaado, dhammaantooda waa inaad markaa awood aad u leedahay qaabkaad aad u ilaashan lahayd mid walba heerka uu kaa taagan yahay. markaan xanaaqa lama huro, laakiin markaan xanaaqo aamusnaanta ayaan magan galaa. maasha allah, waa wax wanaagsan. aniguna waxaan inta badan sidoo kale waxaan adeegsadaa aamusnaanta iyo dhageysiga badan. anigu wax dhageysi baan inta badan ku waashaa, waayo wax baan dhageystaa inta badan sidee maskaxdayda aysan fursad ugu helin waxyaalihiina dhex mara qofka xilligan caraysnaa. marka aad ayaad u mahadsantihiin dhammaan daawadayaasha sharaftii qiimaha leh meel weliba aad joogtaan. waxay intaa inoogu eg qodobadeenii xakamaynta xanaaqa. inta aynu idiin soo daadihin doono qodobadan iyo qodobo kasii muhiimsan iyo barnaamij kale oo nooc kale ah, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu.
kulanti dambe waa xiisa